Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Caawiya Janaal iyo barnaamijkii aqoon maal. Maantana hadduu alle ka raali noqdo waxaa idiin soo gudbin doonaa cashirkii 8aad ee maadada fiisigiska gaar ahaan fasalka 12aad cutubkiisa 1. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa doonaa tusaalaha 5aad ahna tusaalaha 1aad ee uu leeyahay period and frequency in simple harmonic motion. Tusaaleen wuxuu noqon doonaa sida tan soo socoto: a mass of 0.5 kilogram oscillates on the end of a spring on a horizontal surface with negligible friction. With a spring constant of 50 Newton per meter, determine angular frequency of the oscillation, period of the oscillation, frequency of the oscillation. A mass of 0.5 kilogram walax cufkeedu yahay 0.5 kilogram oscillates ayaa waxay ka walhanaysaa on the end of a spring dhammaadka moolo on horizontal surface kaasoo u taala si jiif ah with negligible friction adigoo iska indhatira isliska ka dhexeeyo maaska iyo meesha horizontal surface-ka. The spring constant of 50 Newton. Madoorsoomaha moolada waxay noqotay 50 Newton. Waxaa soo heshaa angular frequency of the oscillation rakaad xagleedka leedahay walhashadaasi, period of oscillation kalka walhashada, and frequency of oscillation iyo rakaadka walhashada. A mass of 0.5 kilogram walax cufkeedu yahay 0.5 kilogram oscillates on the end of spring ayaa waxay ka walhanaysaa dhammaadka moolo on horizontal surface kaasoo loo saaran ooga jiifta with negligible friction adigoo iska dhaafa isliska walaxdaasi. With the spring constant madoorsoomaha moolada ama xooga moolada wuxuu noqiyay 50 Newton per meter. Determine angular frequency waxaa soo heshaa rakaad xagleedka of the oscillation walhashada, period of the oscillation kalka walhashada, and frequency of the oscillation iyo rakaadka walhashada. Si aan u shaqeyn example markood waxaa u baahanaa inaan samaysano givenka waxaana la siiyey mass oo 0.5 kilogram, spring constant madoorsoomaha moolada oo 50 Newton per meter, angular frequency ayaa noola diray rakaad xagleed, 2 waxaa noola diray period oo kalka, 3 waxaa noola diray frequency oo rakaadka walaxda ay leedahay. Solution kan waxa ka bilaaban doonaa markood qaacidada angular frequency. Angular frequency sidaan u soo qaadanay cashirka hore waxaa lagu helaa radical k loo qaybiyay m. K wuxuu tahay inta spring constant, m wuxuu tahay inta mass. Hadaba mass k waxaan haysanaa 50 Newton per meter, mass waxaan haysanaa 0.5 kilogram. 50 haddii aan u qaybino 0.5 waxaan noo soo bixi doonto 100. Radical 100 waxaan noo soo bixi doono 10. halbeeg lagu cabiro angular frequency sida hore u soo sheegnay waa rad per second, ama waxaan dhihi karnaa wuxuu ku imaayay Newton sida naqaan wuxuu ku limid yahay kilogram meter per second square. Kilogram Newton ka soo baxay kilogram ka isla bixi doonaan meter iyo meter isla baxeen waxa noo soo har wuxuu noqon doonaa second square. Second square hadda radical ka saarno waxa noo soo bixi doono second. Halkaas angular frequency rakaad xagleedka wuxuu noqon doonaa 10 radian per second. Haddii angular frequency aan haysano oo noola dir period waxaa ku heli karnaa periodkeena 2 pi oo loo qaybiyay omega. Period qaacidooyin badan uu leeyahay laakiin waxaa kamid ah qaacidooyinkiisa 2 pi loo qaybiyay omega. Hay 2 pi waxay kulmid tahay 3.14 radian omega. Angular frequency waxaa soo heshan 10 radian per second. Radian iyo radian isla bixeen laba hadda ku dhufan 3.14 waa 6.28. hadda 10 u qaybno waxaa noo soo bixi doono 0.628 second. waa second kan hoose wuxuu noqon doonaa sareeyo marka la isku bedeli doono. haddii aan haysano period sidaan hore u soo qaadanay frequency waxaa ku heli karnaa simple way oo frequency-gan wuxuu ku limid yahay rogaalka period oo period frequency are inverse to each other. Frequency wuxuu ku limid yahay 1/t1 haddii loo qaybiyo 0.628 second waxaa ku soo bixi doona 1.59. 1/second waxay ku limid tahay hertz. waxaa kaloo dhihi karnaa ina soo buuxin oo ah 1.6 hertz. aad baad u mahadsantahay daawashada cashirka aad daawatay. haddii aad ku cusub tahay kanaalka Caawiya Janaal subscribe si dad kalena ugu faa'iideystaan share.